madaxweyne xasan sheekh iyo annaga labadayna hadda halkaan joogno isku qoondaana qadartaa naga yeelinayse laakiin waxaan hubaa dadka maanta uu qatarta geliyey dadkii hadda ka hor tabashada qabay oo lahaa xamraa nagula xumeey waay marka waxaad yeelaysaa madaxweyne xasan sheekhow mar haddii xamar aan la wada lahayn oon la imaan karin boorka ku yaala filla soomaaliya ku yaala ka fujiye filla banaadir iyo fillihow inoogu dhiji annaga aan ismaamulno markaas sababtoo ah dadkii walaalaha ahaa ee imaan lahaa ee garooba ka imaan lahaa oo jubbaland ka imaan lahaa haddaad diidi hadda miyaad ogoshahay banaadir state noogu dhig filla soomaaliya oo dhammaa wadala magacaas ka siib noogu dhig filla banaadir noogu dhig ama filla qabiil noogu dhig wixii aad doontid ka dhig adig laakiin tii qarannimo waa ka soo tagtay dadkoodii aad layn gaadhi dadkaas walaalaha maanta diyaaradii qataray gashay bal waa garanaysiin saxaafadan maanta taaganahay diyaarad oo 20 staff hoos dani wata iyo 20 staff oo yiraahdo axmedooba wata ay saaran yihiin oo ay saaran yihiin wariyaashii oo ay saaran yihiin xogeyntiisii oo ay saaran yihiin wasiiradiisii waaba kontorley aniga maalintan kismaayo aadaynay wariyaashayni gaarka ahayaan uga tagnay aabe sakari halkaan aan uga tagnay diyaarad intay naga buuxsantay oo kontorleyda marka saaxiibyaalow waad garanaysiin waa xumeyn iyo dad lagu xumeynaayo iyo qabiil la xumeynaayo iyo qabiil faagid xasan sheekh uu sameynaayo waay horiyaa 4 sano oo hadda dhammaad ah ayaa shir ayna ka soo qayb gelin Puntland ay wax ka soo qayb gasho leheen oo sirdaha ka xirtay oo lalahay waa la godoominaya maanta oo iyaga xal ay keeneen oo ay dhaheen xamar oo intaas aan moognahay ayaan tagaynaa ayuu xasan sheekh maanta diyaaradooda hawada ka celiyay maxaana loo fasirin karin ii sheega marka miyaana loo fasirin karin qabiil xumays miyaana loo fasirin karin in dalka la kala kaxaynaayo adduunyadu ha aragto madaxweyne xasan sheekh wuxuu samaynayo xaqiiqatan madaxweyne xasan sheekh xadkiisi waa ka soo gudbay anigu taliyaa saan yeelay iyo taliyaa amarka bixiyay iyo waxaas wax naga dhaadhacay maaha waddanka mas'uuliyadiisa 3 bilood oo soo socoto madaxweyne xasan sheekh wixii ka halaabo loo haysta cid kale oo haysana ma laha waxaan rabaa arinta baarlamaanka ee uu ka dhawaajiyay xildhibaanka baarlamaankeena sidaad la socotiin 28kii bishaan ayuu kalfadhigiisa ku ekaa mar haddii kalfadhiga uu ku ekaa maalin dhaweetana aad baarlamaanka joogteen oo waa la kordhiyey aan la dhihin baarlamaanka anagu waxaan aaminsanaynay inuu noo xirmay oo xariya haddii isniinta berri ah oo baarlamaan jiro waa sharci darro waa muxuu ahay in laga gudbi sharcigii in muxuu ahay baarlamaankii oo xiran si iskiis ah oo balamo ugu samaystay oo ajendaas ugu samaystay laakiin wixii ka dhaco berrito baarlamaanka ani horta ma tagayo oo dadka la ganaxa ka mid ah laakiin boqolaal daahiraa joogta boqolaal daahir ayaa joogta boqolaal dadka la ganaxay magacyadooda oo kala joogo oo muxuu ahay berri diyaar u ah aadamadooba inuu muxuu ahay meeshiis gal ay ugu daba galaan marka berri wixii ka dhaca kulay saxaafada tiin idinka uu joogi doono muxuu ahay idinkaana aan warkiina aan aniga gurigeyga ku dhageysan doona anigu waxaan aaminsanahay baarlamaanka inuu xirmay berri wixii isku yeeridiisana ay tahay wax qalada oo aanan sharciga waafaqsaneen qodobka 82 farqadiisa labaad ee xeer hoosaadka ayaa dhigay in kalfadhiga 4 sano uu yahay muxuu ahay heshiiskana sharcina aan la keeni karin sharci waxa la keeni karaa 2 bilood ugu horeyso wax sharci oo 2 bilood ee hore noo yeelay malaha waa dhameynay sidaas uu baarlamaanka ku xirmay aadan marka wuxuu rabaa inuu shilmaadkiisii la siiyo uu ku shaqeystay bal aan aragno inuu baarlamaanka asaga leeyahay in kala berrito intii la ganaaxay waxaan filayaa dad nasiib loo jiifin doono inay yihiin dadka berrito diyaar ku ah wajaho asaga intaas waxaan rabaa inaan ku daro intaas nimo wasiiro oo caytamaya xukuumad wasiiradeedii ay caynayaan dadka wax la yaabo waxaan arkay faqiyoo leh
ciidanka xamar loo soo wado ha loo diro caalmiskaad iyo meeshaas iyo shabaab ha loo diro wareer shabaab inaad la dagaashid adan ku xil saaranay oo wasiir waa oo aan ku ansixinay haddii ku xumayn ay ka tahay shaqadaadii aad qof u tilmaamo hoyso looysa shaqadeeda qab ogow waxaad noo tahay shaqaale baarlamaanka Soomaaliyeed shaqadaas ku dhiibtay oo ku ansaxsaday oo muxuu ahaay saaxiibyaalow waad garanaysiin waa xumayn iyo dad lagu xumaynayo iyo qabiil la xumaynayo iyo qabiil faagid xasan sheekh uu samaynayo waay horiya 4 sano oo hadda dhamaad ah ayaa shir ayna ka soo qayb galin Puntland ay wax ka soo qayb gashay leheen oo sirdaha ka xirtay oo la lahay waa la godoominaya maanta oo iyaga xal ay keeneen oo ay dhaheen xamar oo intaas aan moognahay ayaan tagaynaa ayuu xasan sheekh maanta diyaaradooda hawada ka celiyay maxaana loo fasirin karin ii sheega marka miyaana loo fasirin karin qabiil xumays miyaana loo fasirin karin in dalka la kala kaxaynayo adduunyadu ha aragto madaxweyne xasan sheekh wuxuu samaynayo xaqiiqatan madaxweyne xasan sheekh xadkiisi waa ka soo gudbay anigu taliya saan yeelay iyo taliya amarka bixiyay iyo waxaas wax naga dhaadhacay maaha wadanka mas'uuliyadiisa 3 bilood oo soo socoto madaxweyne xasan sheekh wixii ka halaabo loo haysta cid kale oo haysana ma laha waxaan rabaa arinta baarlamaanka ee uu ka dhawaajiyay xildhibaanka baarlamaankeena sidaad la socotiin 28kii bishan ayuu kalfadhigiisa ku ekaa mar haddii kalfadhiga uu ku ekaa maalin dhaweetana aad baarlamaanka joogteen oo waa la kordhiyay aan la dhihin baarlamaanka anagu waxaan aaminsanaynaa inuu noo xirmay oo xariya haddii isniinta berri ah oo baarlamaan jiro waa sharci daro waa muxuu ahay in laga gudbi sharcigii in muxuu ahay baarlamaankii oo xiran si iskiis ah oo balamo ugu samaystay oo ajendaas ugu samaystay laakiin wixii ka dhaco berrito baarlamaanka ani horta ma tagayo oo dadka la ganaxan kamid ah laakiin boqolaal daahira joogta boqolaal daahir ayaa joogta boqolaal dadka la ganaxay magacyadooda oo kala joogo oo muxuu ahay berri diyaar u ah aadamadooba inuu muxuu ahay meeshiis galay ay ugu daba galaan marka berri wixii ka dhaca kulay saxaafada tiin idinka u joogi doono muxuu ahay idinkaana aan warkiina aan aniga gurigeyga ku dhageysan doona anigu waxaan aaminsanahay baarlamaanka inuu xirmay berri wixii isku yeeridiisana ay tahay wax qalada oo aanan sharciga waafaqsaneen qodobka 82 farqadiisa labaad ee xeer hoosaadka ayaa dhigay in kalfadhiga 4 sano uu yahay muxuu ahay heshiiskana sharcina aan la keeni karin sharci waxa la keeni karaa 2 bilood ugu horeyso wax sharci oo 2 bilood ee hore noo yeelay malaha waa dhameynay sidaas uu baarlamaanka ku xirmay aadan marka wuxuu rabaa inuu shilmaadkiisii la siiyo uu ku shaqeystay bal aan aragno inuu baarlamaanka asaga leeyahay in kala berrito intii la ganaaxay waxaan filayaa dad nasiib loo jiifin doono inay yihiin dadka berrito diyaar ku ah wajaho asaga intaas waxaan rabaa inaan ku daro intaas nimo wasiira oo caytamaya xukuumad wasiiradeedii ay caynayaan dadka wax la yaabo waxaan arkay faqiyo leh ciidanka xamar loo soo wado ha loo diro caalmiskaad iyo meeshaas iyo shabaab ha loo diro wareer shabaab inaad la dagaashid adan ku xil saaranay oo wasiir waa oo aan ku ansixinay haddii ku xumayn ay ka tahay shaqadaadii aad qof u tilmaamo hoyso looysa shaqadeeda qab ogow waxaad noo tahay shaqaale baarlamaanka Soomaaliyeed shaqadaas ku dhiibtay oo ku ansaxsaday oo muxuu ahay kuwan la xisaabtamay laakiin hal shay ayaan rabaa inaan ka dhawaajiyo wasiirada cadeystay inay dadka kala geeyaan oo ay caytamaan sida faqiyo kale waa la xisaabtamay baarlamaanka kalfadhigiisa markuu furmo oo la isku soo laabto ilaahay idinkii waa la xisaabtamay لو بلو برلمانك فصحيس أو يه ومقران دونا بعد 2 سنة وحنفلها يا قلوب السيري قلوب محوها هاي تتكعاية إلى نجير الدنيا إن شاء الله إلهي إذن كيس هذا دوما سنتين بعد صحافة فرنتي هذا
ugu xunahay waxa dalka ka dhacay idinkana waxaan doomaynaa inaad nagu qalbi